halkan waddanka daawadayaal qaybtan qodobada aan ku soo qadan doono waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegayo magaalada Kismaayo. Haddaba maxaa ka jira in ciidamada Jubbaland heegan buuxa ay galeen? Maxayse tahay tallaabada ay qaadayaan haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dego garoonka magaalada Kismaayo? Haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah ilaalada madaxtooyada oo la sheegay in laga dejiyay garoonka balse aysan gudaha u gelin magaalada. haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ee dhaqaaqyada socda gaar ahaan wadahadalka u furmaya Kismaayo iyo Villa Soomaaliya. waxaan sidoo kale eegi doonaa madasha samatabbixinta mucaaradka oo isku dayaya markan inay qayb ka noqdaan wadahadalada Jubbaland, Puntland iyo sidoo kale Villa Soomaaliya xubno ka tirsan madasha oo gaaray Kenya doonayana inay kulmo xasaasi la yeeshaan Axmed Madoobe fariin adagna ugu dhiibaan madaxweyne xasan sheekh kahor inta uusan miiska wadahadalka la fariisan. haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa dhaqaaqyada socda Nairobi, Muqdisho iyo Kismaayo iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaadanaya halistii ugu weyneyd maadaama uu ka degayo Kismaayo oo horaan madaxweynaheeda uu sheegay in xabsiga la dhigayo Axmed Madoobe. qodobadaas ayaa daawan doontaan iyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya iyo siyaasadda guud ahaan oo si weyn loo hadalhayo wadahadalkan xasan sheekh, Axmed Madoobe iyo Dani. haddii aad noocuntaa ka mid noqon saaxiibada nagu xiran haddii aad hore noola joogtana waad ku maasan tahay la socodka oo wararkeena. aan ugu horreysiiye waxaa la xaqiijiyey in ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu gaarayo magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. qaar ka mid ah ilaalada madaxtooyada iyo brotokoolka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in ay gaareen iyagoo ay la socdaan ciidamo ka tirsan midowda Afrika magaalada Kismaayo. wararka qaar waxay sheegayeen ciidamada garoonka aysan weli ka bixin oo garoonka ay ku sugan yihiin. sidaan ilo xogaala ku helnay ciidamadan ayaa u badan ilaalada madaxweynaha iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada midowda Afrika. laba diyaaradood oo waaweyn ayaa Muqdisho ka qaaday sida la xaqiijiyey ciidamadan iyadoo oo goordhow marka lasoo bandhigi doono sawiradooda iyo muuqaaladooda marka ay ka degaan oo si rasmi ah ay u tagaan garoonka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulka Jubbaland. ciidankan ayaa qayb ka ah sugidda amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaasoo maalmaha soo aadan ku wajahan magaalada Kismaayo. waxaana wadahadal rasmi ah uu Kismaayo uga furmaya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyadoo oo Villa Soomaaliya kahor inta kulankaasi uu furmin la sheegay inay soo saari doonto go'aan ku aadan inay aqbashay doorashadii ka dhacday Kismaayo iyo in madaxweyne Axmed Madoobe uu yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale lagu wadaa in maalinta beri ah ay soo aadan si rasmi ah ugu laabto Kismaayo xilli uu waqtigan ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaana la filayaa in halkaas uu ka bilaabo kulamada uu la leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud Kismaayo markii uu ka tagay Nairobi. labada madaxweyne ayaa muddooyinkii dambe ka dhaxeeyay xiisad siyaasadeed oo aad u xooggan oo isku rogtay gacan ka hadal iyo dagaal toos ah kadib dhacdooyinkii ka dhacay beleda Xawo iyo Rais Gamboni. xasan sheekh ayaa sheegay dhawaan khilaafkaasi uu soo afjari doono sida ay sheekeen saraakiil ku sugan Kismaayo. hogaamiyaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaa hore u wada hadlay wadahadalka la furayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxayna doonayaan in hal go'aan oo isku mid ah ay miiska wadahadalka la fariistaan. Axmed Madoobe ayaa waxa uu si weyn u cadaadinaya Villa Soomaaliya inay soo saarto qoraal rasmi ah oo lagu xaqiijinayo sharcaanshaha doorashadiisa taas oo markaa uu arko mid lama huraan u ah ka hor wadahadalka. xafiltankan u dhexeeya Axmed Madoobe iyo sidoo kale hogaanka federaalka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh ayaa noqday mid ka mid ah khilaafaadka ugu waaweyn ee sida weyn u hareeyay dowladnimada Soomaaliya. waxaana khilaafkooda uu soo bilowday bishii November sanadii 2024 markaasuu Jubbaland ee markii saddexaad markaa dib u dooratay madaxweyne Axmed Madoobe waxaana Muqdisho ay ku tilmaantay doorashadaasi mid sharci darro ah. dowladda federaalka waxay ka jawaabtay iyada oo markaa amar soo qabasho ah soo jirta oo waaran ah degdegna markaa uga falcelisay doorashadii Kismaayo ka dhacday. waxaana sheegtay in madaxweyne Axmed Madoobe dambiile qaran uu yahay lana doonayay in xabsiga lasoo dhigo. waxaana xigtay warqad kale oo Kismaayo ka soo baxday taas oo dambiile iyana loogu tilmaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud lana sheegay in la soo qabanayo. iyadoo arrintaa ay jirto oo markaa dhowaan uu furmayo wadahadalka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya haddana xubno ka mid ah madasha samatabbixinta Soomaaliya ayaa waxa ay maanta u safreen magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo ku sugan yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. sida aan ilo xogaala ku helnay hogaamiyaasha mucaaradka oo ku midaysan madasha samatabbixinta ayaa waxaa markaa ay wakiisheen Axmed Madoobe in kulankan uu la qaadanayo
xasan sheekh maxamuud uu hordhigo qodobo adag. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre iyo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo wararku waxay sheegayaan in nairobi ay si degdega ku gaareen halkaas ay kulamo xasaasiya ah kula yeesheen axmed madoobe, waxayna kala hadleen arrimaha la xiriira khilaafka kala dhexeeya filla Soomaaliya. xubnahan oo ka socda madasha badbixinta Soomaaliya ayaa sidoo kale la kulmi doona madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo muddooyinkii dambe isagana kulamo siyaasadeed ay ula socdeen isaga iyo sidoo kale Axmed Madoobe magaalada Nairobi ay ku wada sugnaayeen. Axmed Madoobe ayaa lagu wadaa in markii uu kulamada la dhamaysto madasha samata bixinta ugu dambeyn uu gaaro magaalada Kismaayo, halkaas oo si rasmi ah uga furmi doono wada hadalka u dhaxeeya madaxweyne xasan sheekh iyo Axmed Madoobe. wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in ilaa iyo hadda magaalada Kismaayo loo diiday inay gaaraan ciidankii hore dhaca ahaa ee villa Soomaaliya, kuwaas oo laba diyaaradood oo markaa lagu daaduureyn lahaa weli Muqdisho ay ku sugan yihiin. ciidamadan ayaa sidoo kale waxaa weheliya kuwo markaa midowda Afrika, waxaana Kismaayo ilaa hadda ay ka biidiyeysan tahay inay aqbasho codsiga villa Soomaaliya. Jubbaland ayaa lasoo warinayaa in weli si dhammaystiran aysan ugu diyaargaroobin arrimaha socdaalka iyo sidoo kale borotokoolka ciidamada, iyadoo hogaamiyaasha maamulka ay ku maqan yihiin dalka dibadiisana aysan aqbalin in ciidamo fara badan la geeyo deegaanadooda, kuwaas oo wax walba laga filan karo. madaxweynaha Soomaaliya ayaa tegi doona magaalada Kismaayo kadib markii oo halkaas markaa sii gaara ama ugu hormaro madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo la sheegay in saacadaha soo aadan halkaasi uu tegi doono. Axmed Madoobe iyo xasan sheekh ayaana la filayaa inay soo afjaraan muddooyinkii dambe khilaafkii weynaa ee ka dhexeeyey ee dagaalada isku rogay haddii ay isku afgartaan. wararka kale ee aan Kismaayo ka helayna waxay sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo saraakiisha Kismaayo ku sugan ay gebi ahaanba ka biyadiideen diyaaradihii ciidamada geeli lahaa Kismaayo, taasna uu ka yimid amar markaa kasoo baxay madaxweyne Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Axmed Madoobe ayaa saraakiisha ku wargeliyey inaysan arrinkaasi aqbalin wax diyaarad ciidan aysan ka degi karin magaalada ilaa isaga magaalada uu ka degayo, kadibna markaa uu qiimeen iyo xaaladda iyo sidoo kale qorshooyinka villa Soomaaliya. xasan sheekh ayaa dhowaan waxa uu ka sheegay xildhibaanada baarlamaanka hortooda furitaanka kalfadhigii toddobaad in dhowaan lasoo afjari doono khilaaf kala dhexeeya Jubbaland iyo Puntland, waxaana uu sheegay in si odaynimo leh miiskooda hadalka ula fadhiisan doono labada madaxweyne Axmed Madoobe iyo sidoo kale Saciid Dani. xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in muhiim ay tahay in khilaafaadka ragaadiyey horu socodka dowladnimada Soomaaliya inoo gudbo wada hadal iyo miiska in la isla fadhiisto. horaan xasan sheekh ayaa ka biidiyeysanaa inuu la hadlo labada madaxweyne, waxaana arrimaha si weyn markaa u sii cakiraya in horaan xasan sheekh uu sheegay in labada maamul aan loo joojinin oo laga sii socanayo. xasan sheekh maxamuud ayaa waxay ku tilmaameen dadka sida weyn u darsa arrimaha siyaasadda Soomaaliya mid markaa ku guuldareystay ka adkaanshaha Axmed Madoobe iyo Dani, waxaana ay sheegeen in arrinta ama horaan looga digay lana yaqaano halka ay kusoo dhammaanayso. lama oga waxa wada hadalka Axmed Madoobe, Dani iyo xasan sheekh uu kusoo dhammaanayo, iyada oo mas-uuliyiinta madasha samata bixinta dhankooda ay wadaan dadaalo ay fariimo culus ugu dhiibiyaan labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland. wixii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadan xiga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.